Sheekh Cabdilaahi Xasan Xaashi Barbaraawi iyo Sheekh Daahir Cusmaan oo ka mid ah culimada waaweyn ee dalka ayaa waxay booqasho dhiirigelin iyo u kuurgelid xaaladooda waxbarasho iyo heerkooda aqooneed ugu tageen da'yarta wax ka barata hooyga boardingka ah ee barashada cilmiga sharciga iyo xifdinka kitaabka Ilaahay ee degmada Laasgeel gaar ahaan magaalada Dacarburuq ee Imaam Shaafici. maanta waan soo booqanay daatiin macallimiinta iyo ardayda Maxad Imaam Shaafici ee boardingka ee lagu barto Quraanka iyo shareecada ee ku yaala degmada Laasgeel oo ka tirsan gobolka Maroodijeex. ilaahay daraadii baan idin soo booqanay aniga iyo walaalkeen Sheekh Daahir Cusmaan iyo Axmed Sayid oo isaguna nala socday oo barnaamijka waxa weeyaan duubayay. Sheekh Cabdilaahi Xasan Xaashi iyo culimadii la socotay ee soo booqatay macadka boardingka ee barashada cilmiga sharciga iyo xifdinka kitaabka Ilaahay ee Dacarburuq da'yarta ay kula kulmeen dugsiga oo badi ka soo kala jeeda gobolada dalka iyo dowladaha dariska ah oo ay darseen duruusta ay dhigtaan iyo halka uu dadaal marayaba waxaa ka mid ahaa bandhigii ardayda. waxaan dhigtaa macadka Imaam Shaafici waxaan ka yimaaday dowladdeegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Liibaan waxaan akhrinayaa aayado ka mid ah Quraanka Kariimka. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. magacaygu waa Xasan Maxamed Aadan oo kamid ah ardayda dhigata Maxadka Imaam Shaafici oo ka yimid gobolka Cayn magaalada Buuhoole. waxaan inoogu luuqeyn doonaa nadmiga ajruumiga ee loo yaqaan Camriidiga uu ku nadmiyay Sheekh Sharafuddin Yahya ibn Nuruddin al-Camriidi. bismillahir rahmanir rahim oo ku socda Bahr Rajis. الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى حتى نحت قلوبهم لنحوه فمن عظيم شأنه لم تحوه فأشربت معنى ضمير الشأن فأعربت في الحان بالألحان ثم الصلاة مع سلام لائق على النبي أفصح الخلائق محمد والآل والأصحاب من أتقنوا القرآن بالإعراب وبعد فاعلم أنه لما اقتصر جل الورى على الكلام المختصر كي يفقهوا معاني القرآن وكان مطلوبا أشد الطلب من الورى حفظ اللسان العربي كي يفقهوا معاني القرآن وسنة الدقيقة المعاني والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لن يفهما
وكان خير كتبه الصغيرة كراسة لطيفة شهيرة في عربها وعجمها والرومي ألفها الحبر بن الأجرومي وانتفعت أجيلة بعلمها مع ما تراه من لطيف حجمها. magacaygu waa Ibraahim Axmed Shire oo ka yimid magaalada Ceeriga oo la yiraahdo. halka waxaan u soo istaagay inaan akhriyo Alfiyat ibn Malik fi an-nahw wa sarfi iskaliya Sheikh Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad. baabkan akhriyay waxa weeye al-mu'rab wal mabni siday ku socoto alfiyadu bahriga ku socotona waa bahru rajz mustaf'il 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 lix jeer مستفعل 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 والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جيتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار وصلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم. magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Xasan Jaamac waxaan ka imid qariidad muraac kana tirsan gobolka Daadmareed waxaan isu taagay aayad quraan inoo akhriyo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. magacaygu waxaa la yiraahdaa Axmed Aad Cabdulqaadir Cabdiraxmaan waxaan ka imid dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Liibaan degmada Kuradhaamole waxaan dhigtaa macadka loo yaqaan Imaam Shaafici ee ku yaal degmada Dacarburuq waxaan yar akhrinayaa wax ka akhrinayaa sifaadka Nabiga sallallahu alayhi wasallam منظومة مقعدة اللي يرادو عقد الزبرجد من الفاظ حديث أم معبد منظومة واحد تريه أحمد سالم الشنقيطي رحمه الله إليك نظما في صفات أحمدي عقدت فيه لفظ أم معبدي بادي الوضاعة وسيم أبلج وحسن الخلق قسيم أدعج أحور أقرن أزج أكحل أوطف كث لحية وأصحل وساطع العنق فاحم الشعر منطقه لا نزر فيه أو هذر في سمته الوقار والسناء إن يتكلم يعله البهاء بل هو حلو إن تكلم رؤي من فيه مثل خارزات اللؤلؤ أبهى الورى في البعد دون ريب أحسنهم أحلاهم من قرب ربع فلا طول يرى أو قصر كالغصن بين اثنين لكن أنظر وهو رفيع حسن في قدره له رفاق قد عنوا لأمره ولم تعب محمدا من ثجله كذاك لم تزر به من صعله لعابس الوجه ولا مفند بل هو محشود له محفظ صلى عليه الله ما شخص قرى سيرته ووصفه فانبهرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث كلابات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
kormeerka culimada iyo u kurgelidda kobtan aqooneed iyo ardayda ku xaraysan markaskan waxaa culimada warbixin ka siiyey macalin cabdiraxmaan baashe suudi oo ka mid ah barayaasha markaska waxaana hadaladiisi ka mid ahaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنيقو معلم كمدا معلمين توحكردقا معهد الإمام الشافعي وكيا لا دقمدا لا سجيل كارهان دعر برق مقعيقنا هو عبد الرحمن باشا السودي waxaan ka warrami doonaa insha allahu tacaala macahadka ardayda dhigata hadda iyo markaa xog markaa yani ku saabsan ardaydaas waxbarashadooda waxa weeye sanadkii 2022 bishii 8aad 13keedii ayaa la soo qoray dufcaddan hadda dhigata waxay hadda dhiganayeen sanad iyo badh alxamdulillahi rabbil caalamiin waxay kasoo bilaabeen markaa meel hoose qur-aanka waa loo soo bilaabay badankooda nin iyo dhif mooyaan oo markaa 5 kiis meelaha ka qaatay laakiin badankooda way soo bilaabeen duruusta qudheeda waa loo bilaabay waxaa looga bilaabay markaa waxa weeye qoraalka looga bilaabay iyo akhriska alxamdulillahi rabbil caalamiin maanta meel fiican bay marayaan almustawa athani ay gelayaan oo mustawa alawwal ba maanta gabagaba ah waxa weeye duruusta markaa ay dhigtaan meel fiican markaa ay marayaan dabuubaha ardayda ee ay miidu da'aysay iyo khayrka ay dareerinayeen da'yarta ay culimadu kula soo kulmeen dugsiga boardingka ah waxay culimada gelisay daareen farxadeed oo sarreeya waxaana la dardaarmay ardayda sheekh cabdilaahi xasan xaashi barbaraawi iyo sheekh daahir cusmaan oo sidan ula dardaarmay aad iyo aad baan ugu faraxnay maanta waxaan idinkala kulannay arrinka koobaad ee aad noo faraxti geliyay waxa weeye muddo kooban oo sanad iyo badha idinkoo joogay maxadka weliba fasaxyana ay ku dhex jireen in rag fara badani qur-aankii ay dhameeyeen kuwo kalena in yar ay uga harsan tahay ilaahay baa fadligaale inaga mahadnaqaynaa mahadnaqa ilaahay dabadiina macalinkiina qur-aanka ilaahay khayr ha siiyo inuu dadaal fara badan iyo juhdi idinku bixiya baa ka muuqata idinkuna aad dadaasheen waayo ardaygu haddaanu dadaalahayn dee macalinku qur-aanka kuma shubayo marka ilaahay kitaabka ilaahay aad kor u qaadeen xifdideen ilaahay kor ha idinku qaado rabbina subxaana watacaala ha idinku xifdiyo taladu waxay tahay iyo tusaalaha aan idinkaga tegaynaa dadaalka barashada diinta qur-aanka iyo sunnaha iyo culumta shareecada halkaa inaad kasii wadaan oo weliba aada u sabirtaan qofkii sabraa meel kastoo uu hiigsado biidn illahi tacaala wuu gaadhaa hadduu ilaahay tala saarto rabbina subxana watacaala kaalmo weydiisto qofka bani aadamkaana wax kastoo u dhaqaaqa caqabad way ka hor yimaadaan dadkuna waa laba qof marka caqabadi ka hor timaado dib uga noqdo dib u gurta oo hadafkiisii aan gaadhin iyo qof adkaysta oo sabra oo ka gudba inkastoo nolosha boodhanku ay adag tahay laakiin mar walba waxaad garab dhigtaa noloshii nebi maxamed caleyhi salatu wasalaam iyo saxaabada ee siirada aad ku dhigateen ee diinta ay ku baranayeen saxaabadu ee diinta ay ku faafinayeen ee ay kor ugu qaadayeen ilaahay subxaana watacaala tawxiidkiisa iyo kelimatu alislaam mar walba noloshana noqonaysa nolol aada uga wanaagsan si kasta oo duruufta nololeed ay u jirto aan idinla dareensannahay inkastoo laydin dadaalo oo ilaahay daraaddii laydinku dadaalo oo aada ogtihiin oo wax maaloo laydinka qaadaa ma jirto dad walaalihiin oo ilaahay daraaddiisu xilqaamay baa idiin shaqo taga waxaad ku noolaan lahaydeen wax ku baran lahaydeen waxa weeyaan kasoo shaqeeya oo hawsheeda gala markaa si kastoo duruufta nololeed ay tahay waa inaad u sabirtaan muddadaa kooban durba muddadii kala barh wax ku dhow ayaa tegey inta kalena saasunbay u dhammaanaysaa raggii mar idinla soo gala ee idinka hadhay maanta inta aada haysaan ma hayaan waa faa-iidaad maanta taagantihiin alxamdu lilah ariga kalena wuxuu yahay dhalinyar baa tihiin xifdiga cilmiga ku dadaala qur-aanka idinka ku dadaalaya mutuunta cilmiga ee kala duwan gaar ahaan kutubta nadmiga ah sheekhii luqada iyo gabayguna u idinla joogaa sheekh cabdiraxmaan ilaahay subxana watacaala ha barakeeyo oo fursad qaali oo idin dhex joogta weeye waa inaad ka faa'iidaysataan cibaadadana ku dadaala cibaadadu
ilaahay baa idinku barakeynaya cilmigana idinku fududeynaya aayad iyo xadiid kastoo aad maqashaan haddaad camal u rogtaan weligiin ilaabi maysaan markaad waaweynaataan ilaahay baa idin xifdinaya oo idin ilaalinaya markaad waaweynaataan ilaahay baa idin xifdinaya oo idin ilaalinaya oo cibaadadana idin fududeynaya arrinka kale markaan idin wareysanay dee sida ka muuqata waxaad kasoo jeedaan magaalooyin iyo deegaamo kala duwan wax dad isu keena wixii u fiicnaba isu keenay oo ah al-iimaan wal-islaam wax lagu walaaloobo oo dadka isu keena islaamka iyo iimaanka u fiican inama almu'minuuna ikhwa ilaa aakhiro walaaltinimadii jiraysay baa dhexdiina taal qabyaalad ma jirto cunsuriyad ma jirto waxaasoo dhami waa jaahiliya diinta aynu baranayna ay noo diideyso alxamdulillah waad ka dhab sheegteen weli maxadkaa lagama soo sheegin wax xunoo ku saabsan waxa weeyaan qabyaalad ama khilaaf iyo fitankaa dadka soomaaliyeed dhex yaala weli lagama soo sheegin aad baad ugu mahadsan tihiin walaalo noqda ilaahay isjecel iscaawiya xataa markay kala tagaan isxidhiidhiya intaasaan anigu insha allahu tacaala aan hadal ku joojinayaa sheekh daahir cismaan oo kamida waxa weeyaan walaaladeenna dacwadda iyo khayrka inagula jira oo dee daahaana aniga iga weyn oo tajaaribta iyo khibradda nolosha u leeyahay tayada ay ka sarreyso ayaan u dhiibaya isaguna wixii talooyin insha allah suu idinku kordhiyo الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحي دعوتها أها وعدي شيخنا الله بركيش عبد الله بربراوي بايدين دمي ماشي أنا لو يكون مال بركيسن واحد اعتمادنا والدين تيلاهي وأنا أركن إن المجالين كل الدول وصومالي ودكتور اعتمادين واحد سكوت اعتمادنا الدين تيلاهي تحت diinta ilaahay unbaa asala waxa la waxa kale waa asnaam buuyi marka taad ku walaalada marta wax ku baranaysan Allah idin barakeeyo diintan barashadeeda dadkii hore soo xambaaray dhibaato badan ama asxaabadii han noqdaan ama rasuulka han noqdaan intii ka dambeysay noqdeen dhibaato adag bay ka soo mareen waxaan garanayaa Ethiopia loo dooni jiray cilmiga nin waxaan iminka jooga Hargeysa wara saanti uu ku riday waraaba kala cararay iska daameel saxdo dugsiya ama aqala ma jirin waraaba saantiyeeda ku rida kala cararay idinkuna aqala saxataan kuraas wax ku baranaysaan sida uu sheegay qofka ku saxda ma lihiin sidii rasuulku uu ugu saxday calayhi salaatu wasalaam horta waxaan idinku ducaynaa ilaahay diintiina idin barakeeyo hadday idinku adkaato way dhacdaa in qofka ay casharka ku adkaado oo isarko inuu hawsha ay ku adagtay ilaahay bari intuu meel gaar ah u baxay ilaahay weydiisto inuu fududeeyo wuu fududeeyna insha Allah taala ikhlaas baan u baahan wax kasta waa inaad ilaahay dirti u baranaysa oo inaad ilaahay ugu dhawaato oo dadkana gaarsiisa aad u baranaysa in wax lagu helay iyo in sheekh meel laga noqdo oo laga xadreeyo iyo waxaas ma jirto ilaahay dirti baad u baran waa dacwadana inaad ku fiirsad qalbiga gashan ikhlaas waxa ilaahay ku fududeynaya marka hadday idinku adkaato way dhacdaa in adkaato banaanka u bax cid laaba degantihiin keliga habeenkii bax ilaahay bari oo ku fududeynaa insha Allah taala oo ku fududeynaa wax adag ma jiraan ilaahay baa gacanta ku haya walba ducaysta jaan fursadaad haysataan waxa weeye magaalo ma joogtaan aan maxad ka waxnay inta magaalada ahaa mar hore oo imka aan maranay inay 9 sano meelaha ka soo wareegtay laakiin inta banaanka loo soo saaray maanta ay ugu horeysa maxad meel cidla ah oo wax idin mashquulinaya aanu jirin de meesha ugu wanaagsan wax lagu barto weeyaan on gaajaduna aanu jirin ay duruufta iska adkaato waa boarding kala yahay meel hooyo dadka lagu xireeyo ma hasidida guriyaha caadiga ma noqonayo laakiin waxaad meesha u timid ba ka weyn iyo hadafkaad leedahay ka weyn waa aakhiradaadii iyo adduunyadaadiiba aakhiradaadii adduunyadaadii weeyii آخرنا واحد ميل في عنكم مرة كرتا مركا دينتي إلهي إن يجيب كو عمل فلا أو كو عباديست أدبرته هذي صلاة هاي هذي واحد لو حي واجبات اللي قاعدونية هاي هدونا أدتك ولا لها يد مقالوين كذا كتير معدين كل نور أما ميل كله بتشوقات جالسيزا علمك أوفي عنوي وحائمك علم مادي اللي برنا يو وحذاك سنين شهادة PhD اللي راح يستا
oo sida loo tukada garan lacagta iyo adduunka lagu bixiyana aad yaabto idinka sidaasaana wax lagu bartaa qofka barwaaqaysan waxa ma barto markay noloshu adag tahay ee qofku meel adag uu ka yimaado qofka aan wax barto dadka soo baxay culimadii niman wax adag wax ku soo baran ma jiro nin barwaaqa wax ku soo bartay ma jiro hamoodina inuu Sheekh Cabdalle barwaaqa ku soo bartay sidii nanumba oo duruufo markaa horkaadka imika ka saalay waqti la qaxay waqti yaraa waqti dhibaato badan soo baxday yani dhibaato adag qof kasta wax ku soo bartaa nin kasta culimo aba waraysta wax aan isiri qofkaas raaxa ku soo karo diin ku bartay aan ma arag intaan arkay iyo intaan aqriyay marka waxa ay haystaan fursad wanaagsan waqti wanaagsan meel wanaagsan wada joogta meesha aad joogto waqtiga aad haysataa iyo daqiiqadii ka lumin sheeko inaanay kaaga lumin waa in ama 10 ku foorarta ama mid aad dhageysanaysa ama mid aad qoraysa ama aad cibaadaysanaysa wax inta dhaafsiisan oo shaqo meesha kaaga banaanin ma jiro hadii kale waqtigu ka lumaya inta halka bari baa soo doontaa ma aad wixii hada bari arintan aad culay saari lahayd waad ka biyo gaadhi lahayd soo 10 ka noocaas hadda bari culays ma saarin culays saar lahayd imika inta ka fiican baad garan lahayd marka waalidin ducaynina Allah idin barakeeyo nin wala meel ma tagi doona ilaahay jannada ha inagu kulmiyo ilaahay cilmigana ha idin fududeeyo ilaahay baynu mahadnaqaynaa inuu halkaas isku keenay oo in dad diin ilaahay baranayo quraan baranayo xadiis baranayo luqad baranayo in meesha ugu nimid ilaahay baan ka baranayo inuu jannada inagu kulmiyo idinkana cilmiga Allah idin fududeeyo assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدبو مهدسن ياهي شيخ عبد الرحمن باشي وكم إذا معلمين تلف نبر كواء محد كان آدي أدنا أرديد وقف فايدي فنون كالدوان سجى معلمين تكلابا جزاهم الله خيرا وحين وقوى الرمي وحبر الشدى محد كا قارهان دفعات ده هدي كتيرتا waxay dhigteen iyo halka ay marayaan aniguna suuro iyo muuqaal guud baan insha Allah taala ka bixin doona maxadka 2006 ayaan maxadkan aasaasnay tiro yaro 10 qof ah ayaan ku aasaasnay dufcadii koobaad 10 qof ay ahaayeen magaalada Dacarburuq dhexdeeda masaajid yar iyo 2 qolo ku yaala ayuu ahaa kadibna waxaan u soo rarnay halkan maanta uu yahay oo dhowr kiiloomitir waqooyi ka xigta magaalada Dacarburuq dhismayaal baa ku yaala iska mutawaadica sad muuqaalada ku aragtaan masaajid kooban dhowr fasal iyo guriyo kooban oo ardaydu ay seexdaan ayaa ku yaala iyo madbakh cuntada ay ku karsadaan maxadku maraaxil kala duwan ayuu soo maray markii hore wuxuu ku bilaabmay ardayda kooban ee deegaanadan halkan ku yaala u dhow ka soo jeeda hadda ardayda maxadka ku jirta oo inta gudaha ku jirta seexatay wax ka cuntaa 50 arday weeye dhowr iyo 10 ardayna waxay ka yimaadaan magaalada Dacarburuq maxadku wuxuu leeyahay qaybtan boodhanka ama qayb kale magaalada ku dhex taala oo iyada inta wax laga barta laga noqdo oo habli iyo inamaba waxa weeyaan ay dhigtaan marka dadka dhigta waxa weeyaan kama yara waan rajaynayaa 100 qof waxaanan u badinayaa inay ka badan yihiin ardaydu halkan ayay ku nool yihiin ay seexdaan halkan ayay saas oo kale wax ka cunaan duruufta nololeed ee guud ahaan wadanka ka jirta gaar ahaan maxad boodhana ka jirta oo meel rasmi ah ku tiirsanayn way ka muuqataa haday noqoto dhismayaasha iyo haday noqoto cuntada wax weeyaan ardaydu ay cunayaan inta way ka muuqataa halka ardaydaasi ay noloshooda ku tiirsan tahayna waa tabarucaadka ay bixiyaan dadka khayrka meel dibada xooga ma yimaadaan oo wadanka gudihiisa dad kamida ayuun baa bixiya miisaaniyadiisu bishii $5,000 ayay hadda cagacageynaysaa lacagta soo gashaana intaa ee rasmiga ah intaa aad bay uga yar tahay haddana ilaahay fadligiisa ayuu maxad ku socdaa mar hadduu meel loo aasaasay ilaahay daraadiyo diinta in lagu barto oo aan loo aasaasin in laga shaqaysto ardaydu waa kuwaas wax lacag waxa weeyaan lagama qaado bilaash bay ku dhigtaan waxa weeyaan maxadka meel kasta iyo deegaan kasta waxa weeyaan ay ka yimaadeenba oo deegaano waxa weeyaan kala duwan bay ardaydani ka yimaadeen
qabaa'ilka soomaalida badankoodu waa ay ku jiraan, gaar ahaan inta deegaankan waxa weeyaan u dhow dhow, hadday noqoto dowlad deegaanka soomaalida Ethiopia iyo hadday noqoto waxa weeyaan gobolada Somaliland, dhammaantoodba arday ayaa ka joogta. ardaydani markay maxadka dhameeyaan waxay ku noqdaan, badankoodu marka hore waxay ka yimaadeen deegaanada tuulooyinka iyo miyada, halkii ay ka yimaadeen ayay ku noqdaan, halkaasay macalimiin ka noqdaan. arday tiro badan oo maxadka hore uga baxday oo dufcaad ka horeeyay iyaga aqoontoodii way sii wateen ilaa jaamacad ay ka baxeen in badan oo kamidi iyaga markaa culimo iyo macalimiin iyo mudarisiin ka ah deegaamadii ay ka yimaadeen. deegaamo kale oo aan ahayna way tagaan oo macalimiin ay ka noqdaan. la iskuma gaadho ardayda ka soo baxda oo dadku aad bay u raadiyaan oo mar walba way soo dalbadaan, way noo yimaadaan. mararka qaarkood markaan macalimiinta la soo hadallo, hadda ciddii arama hayna bay idhaahdaan, bal waanu baadi dooni doonaa oo ardaydii hore ayaanu la hadli doonaa. ardaydu markay maxadka yimaadaan siduu sheekhu sheegay, waxaan u shardinaa xagga da-da 18 jir inuu noqdo, si marka uu maxadka ka baxo qof muddo karo dadka wax u dhigi karo u sheegi karo waxa weeyaan uu noqdo. inta badan se waxaa dhacdaa inaan da-da aan la helin oo tuulooyinka iyo miyadii aan laga helin, marka kolley saayiraad waa la sameeyaa, da-da da ka yar maxadku uu qaataa, laakiin qof muddo karo boarding geli kara oo iswadi kara oo inaanu balwad lahayn, xaas iyo reer uu ku mashquulsan yahay oo inaanu lahayn. waxaa shardi u ah sida haalibkaa in tuulooyinka iyo miyada waxa weeyaan oo ardaygu ka yimaado, taasaa shardi u ah. waktiga maxadka la dhigtaa isbedelaa ku yimi. dufcaddii ka horeysay waa 3 sanadood bay ku jireen, laakiin waan kordhinay waktiga oo si tayadu ay usii korodho, waanay ka muuqataa alxamdulilah. oo ardayda badankooda suu sheekhu sheegay iyagoo bilowba yimaadaan xagga qur-aanka iyo xagga luga alcarabiya. go-aanka sanadkan aanu qaadanay wuxuu ahaa in xoogga la saaray inta hore qur-aanka iyo alluga alcarabiya, soo ardaygu labadaa uga dhismo oo culumta kale ay ugu fudaato. sanadii barhkaa hadda ay ku jireen dufcaddani badankoodu qur-aanka way xifdiyeen ama gebagebo ayay ku dhow yihiin, sida su-aalaha aan weydiinay iyo warbixinta macalimiintaba ka muuqata. luga alcarabiya qoraal iyo akhris way itqaaniyeen. kutubtii luqada ee caadiga ahayd alcarabiyatu bayna yadeek oo kale waa kitaab loogu talagalay dadkan luqada carbeed u dhalan ee caajimta inay af carabi ka bartaan ayay hadda dhigtaan, weliba buuggii labaad. xagga naxwaha iyo qawaacidda luqadana way bartaan oo arkaysan ardayda qaarkood nadmiyadii ama gabayadii naxwaha ahaa ay dhigteen ay akhriyayeen. dadka muslimiinta ah ee jecel dadku inay diinta bartaan, diintu ay kor noqoto, khayrkuna waxa weeyaan uu faafo, garab istaagga maxadkani wuu u furan yahay. hadday noqoto waxa weeyaan dhismayaal lagu soo kordhiyo, sanad walba ardaydu way sii badanayaan, dhismayaashuna way ku yar yihiin. masaajidkoo kale sidaad muuqaal ku arki doontaan uu yar yahay, ballaadhinaya waxa weeyaan uu u baahan yahay. xagga biyahoo kale meelaha mashaakilku maxadka ka haysta ayay kamid tahay. tog dhinacan ka mara galbeed maxadka ayaanu ka qodnay ceelal gacanta lagu qoday, waa dhagax adag dhulku. marka jawigu uu kululaado, kaliil iyo jiilaal ay noqoto, biyuhu way go-aan ama way yaraadaan. waxaa lagu khasbanaadaa marar badan in booyad waxa weeyaan loo shubo. inta badanna ceel riiga ayuunbaa wax ka tari kara oo ceelashan gacmaha lagu qodayaa. aad bay u adag yihiin, meelaan la dhaafi karin bay leeyihiin. taasina waxay sababtaa inay biyahoodu waxa weeyaan aad ay u yaraadaan. nooc kasta oo caawimo ah, hadday tahay raashin, hadday tahay waxa weeyaan mushahar macalimiin, hadday tahay saas oo kale biyo, hadday tahay dhismayaal, hadday tahay gogol, wax kasta oo bani aadam uu u baahan yahayba halkani way u baahan tahay. waana meel dadka muslimiinta dhammaantood ay wada leeyihiin, waayo wixii ay wada lahaayeen oo diintooda ay halkani u adeegaysaa, ay u shaqaynaysaa. qof walba muslimana way u furan tahay. ilaahay subxana watacaala ha idin barakeeyo. warbixinta kooban ayaan aniguna jeclaystay inaan ku daro intii uu inoo sheegay sheekh cabdiraxmaan. jazahu llahu khayran. sala allahu calaa nabiyina maxamed.